بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبك الصوماليات meel kastoo ay joogtaan iyo guud ahaan ummadda islaamka waxaan ugu hambaliyeynayaa bilashada bisha barakaysan ee Ramadaan waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak kullu aamin wa antum bikhayr walaalayaal bisha Ramadaan waa bishii raxmadda dambi dhaafka iyo bishii naarta la iska xoreynayay waxaan Allah ka baryaynaa inuu nagu daro adoomadiisa loo naxariisanayo dambigooda la dhaafayo naartana laga xoreynayo sidoo kale bisha Ramadaan waa bishii sadaqada wax bixinta iyo iscaawinta iyo u gargaarista dadka masaakiinta ah sida aan wada ognahay dalka waxaa xilligan la jooga ka jira abaar aad u daran oo dad iyo dunyaba saameysay malaayiin shacabkeena Soomaaliyeed ka mid ah ayaa wajahaya xaalado bini aadamnimo oo aad u daran una baahan gurmad degdeg ah annagoo ka duulayna mahmaadii ahayd biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in aan isu gurmadno oo loo guntado sidii aan u caawin lahayn dadkeena abaartu saameysay intii aan gacan kale wax ka sugi lahayn dunidu wayna taageertaa waana u mahad celinaynaa cid kasta oo noo soo gurmatay hase ahaatee waxaa xaqiiqo ah in gurmadka aan isu fidinno iyo istaageeridda dhexdeenna ah ay aad iyo aad uga waxtar badan tahay dhowrto dibadeed waxaan leeyahay aan u istaagno gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna abaartu saameysay annagoo ka faa'iidaysanayna nafaxaadka bisha barakaysan iyo khayrka badan ee Ramadaan ku leeyahay bisha barakaysan ee Ramadaan sidoo kale waa in aan uga faa'iidaysanaa xoojinta midnimadeenna iscafinta iyo xallinta khilaafaadka dhexdeenna ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka go'an in ay geed gaaban iyo geed dheerba u fuusho xal u helista wax kasta oo ragaadinaya midnimada iyo horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyadoo loo marayo wada hadal iyo isqancin waxaan ammaanayaa oo bogaadinayaa ciidamada qaranka ee dhaxanta dhamacda iyo dhufaysyada ugu jira difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xilligan Ramadaan ee dadku ay cibaadeysanayaan waxaan u rajaynayaa guulo isdaba joog ah Ilaahay idankiis geesiyada qaranka iyo hay'adaha kala duwan ee amniga waxaan leeyahay si laba jibaara dadaalkiina kana feejignaada dhagarta cadowga oo ay khawaarijtu u horeyso ee caadeysatay daadinta dhiigga dadkeena xilliyada ay cibaadeysanayaan shacabkana waxaan ugu baaqayaa una boorinayaa in ay hay'adaha ammaanka si dhow ula shaqeeyaan oo ay siiyaan xog alla ay helaan oo ay la wadaagaan cid kasta oo ay ka shakiyaan khawaarijtana waxaan leeyahay daadinta dhiigga muslimka diin iyo jihaad midna ma aha ee waa qalooc iyo baadinimo ee ka waantooba waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa in aan baaq u diro dhalinyarada la marin habaabiyey ee khawaarijta u dagaalamaya waxaan leeyahay waxaad tihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo la khalday dowladda Soomaaliyeed idin lama rabto in aad jid khaldan ku dhamaataan waxaan rabnaa in aad badbaadaan nolol samaysaan nabad ku noolaataan dadkiina ka mid noqotaan kana shaqaysaan wanaagga iyo horumarka dalka iyo dadka xooggii ummadda ayaad tihiin aad ka mid tihiin idinku
si qalloocan xooggiina yaan looga faa'iidaysanin oo dhiigga abriyada Soomaaliyeed lagu daadinin xooggaada ugu gargaar kuna dhis dalkaaga xooggaaga ka mid noqo dhalinyarada tirada badan ee Soomaaliyeed ee dalkooda waxtarka u ah kuwa idin khalday ee idin leh walaalihiin qarxiya oo dila way idinku dangaarayaan xaabo ayay idinka dhiganayaan ee way og yihiin xasuuqa shacabku in uusan islaamka sal iyo raad toona ku lahayn sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa in ay ka soo baxaan khawaarijta dhalinyaradaas dowladduna cafis ayay u fidinaysaa cid kasta oo si iskeed ah uga soo baxda khawaarijta iyo dhaqankooda qalloocan mar kale waxaan leeyahay Allah hana waafajiyo khayrka iyo barakada bisha Ramadaan nabad iyo barwaaqo Allah noogu dhameeyo ramadaanada dambe ee soo socdana nabad iyo barwaaqo Allah nagu gaarsiiyo